sida wada ogsoontihiin waxaanu horta ujeedada shirka maanta u qabanay waxa weeye inaan ku dhawaaqno oo iclaamino muddadii iyo goobtii shirwaynaha beesha Garxajis ee ay soo diyaarisay guddiga qabanqaabada ee loo xil saaray shirkaasi sida wada ogsoontihiin 6 bisha December guddiga guud fadhi ay yeesheen waxay ku baaqeen in shirwayne caam ah ay isugu timaado beesha Garxajis waxaanay magacaabeen guddi qabanqaabo oo ka kooban 7 xubnood oo loo diray inay ka soo shaqeeyaan qabanqaabada shirkaasi waxay dabeedna saaka oo ay bishu 22 isugu yeedheen suldaanka guud sulaadiinta beesha guddiga guud iyo dhamaanba guddiga beesha si ay ugu soo gudbiyaan ay ugu sheegaan goobtii iyo maalintii una iclaamiyaan iyagoo ka dalbanaya waqtiga ay ku soo taliyeen inay ansixiyaan oo ay aqbalaan insha Allah ta'ala kuna dhawaaqaan oo iyagu ay ummadda u shaaciyaan guddigu markii ay talooyinka faraha badan iyo aragtiyihii mujtamaca beesha ee gobolada gudaha iyo dibadba ay la tashadeen waxay isla garteen iyadoo inuu xilli jiilaale ku jirno shirkaasi inuu ku qabsoomi karo marka roobku da'o oo ku siman 15 bisha Abriil 15 bisha Abriil si jaanis loogu helo insha Allah ta'ala inay gudaha iyo dibadba dadku kaga soo qayb gali karaan looguna tabaabulshaysan karo qodobka labaad waxay guddiga qabanqaabadu soo jeedisay oo soo jeedinaysaa goobta shirku inay noqoto markay ra'yiga dadka ururiyeen Gobolka Togdheer dhinaca kale waxa iyaguna halkaas hadalada iskaga daba maray isla markaasina sheegay inay si weyn u taageersan yihiin go'aankan ka soo baxay guddida qabanqaabada shirwaynahaasi isla markaana ay ku sheegeen waqtiga rasmiga uu qabsoomayo shirwaynahaasi gudoomiyaha guud ee beelaha dega koonfurta magaalada Hargeysa ee galbeedka magaalada Burco Suldaan Axmed Cismaan Cadagude Suldaan Cabdiraxmaan Good Boqor Faysal Cismaan Boqor Raabi Yuusuf Cabdillaahi waxaana hadaladoodii kamid ahaa sidatan dadka ay khusayso arintani ee beelweynta Garxajis gudaha iyo dibad ka soo qayb galkeeda waqti baa leeydi siiyay ku haboon waqtiga leeydi siiyay in la dhowro oo la ilaaliyo oo xilligiisa lagaga soo maaragtay qayb galo waxaan uga mahadcelinayaa guddida qabanqaabada hawsha weyn ay soo qabatay waxaan uga mahadcelinayaa mar labaad go'aanka ay soo saartay waana ku raacnay waana u gudoominay iyadoo uu nagu horkacayo suldaankayga guud ee beelaha Garxajis labada arrimood ah inay shirku dhaco 15 Abriil iyo inuu goobta uu ka dhaca ay noqoto Gobolka Togdheer cid walba oo beelaha kamida oo Garxajis oo meel kasta joogtana waxaan leeyahay waqtiga ilaaliya sida ay sheegeen muddada ay soo gooyeen iyo gobolka ay ku qabteen oo Gobolka Togdheer ah iyo muddada 15 Abriil ah waanu ku waafaqnay waana eedsanahay waana gudoon sida ay sheegeen shirwaynaha beesha oo ah shir dan iyo mustaqbal lagaga tashanayo qarannimada aayaheedana lagaga tashanayo waxaanu la qaadanay u gudoominay guddida qabanqaabada iyo guddida guudba sida ay soo gooyeen 15 Abriil iyo goobta Togdheer ah in lagu ansixiyo lagu qabto